subscribe taabo halkan. sidoo kale kambaleelka ama jeliska furo. Ramadan Mubaarak waxaan isku taagi doonaa cuntooyinka ugu wanaagsan marka ay noqoto xagga qofka sooman ee markaa taagan xilligii afurada iyo dhowr cunto oo faa'iidooyin u leh. Khudaarta la miiray sida laga soo xigtay khubarada aqoonta durugsan u leh cilmiga cuntada iyo suulitirkooda. Khudaarta la miiray waxaa ku jirta sonkorta glucose oo u wanaagsan qofka sooman, taasoo dib u soo celin karta hoos u dhicii ku yimi intii uu soomanaa sonkortiisa. Timirta waa midho qalalan oo macaan isla markaasna qani ku ah sonkor iyo macdano badan oo ay ka mid tahay potassium oo si dhaqso ah soo kabasho ugu ah qofka sooman. Waxaana muhiim ah in qofka uu ku dadaalo isticmaalka midhaha timirta. Biyaha jirka oo biyuhu ku yaraadaan waxay keentaa fuuqbax. Tan ayaa qofka sooman kaga adag gaajada uu dareemayo oo haraadku waa ugu nugul yahay qofku inuu adkaysto marka gaajada loo eego. Sidaas ay tahay waa in qofku uu biyaha aad u cabo kadib afurta inta uu awoodo. Maraqa diiran in qofku isticmaalo dareere faa'iido u leh jirkiisa waa lagama maarmaan. Sidaa darteed isku day inaad cabto dareere kala duwan sida maraq diiran oo kale. Midhaha la cuno ha ilaawin isticmaalka ama cunada midhaha sidooda loo cuno, waayo waxaa ku jirta macdano fara badan oo aad u baahan tahay iyo weliba fiitamiino waxtar ku leh.